السلام عليكم ورحمة الله deeq aad baan kuu salaamay naxariista korkaaga ahaato waxaan rajeynayaa in xaaladaadu kala degtay oo aad nafistay waayo waxaan arkay commentiga aad soo qortay ugu tiri cilmiga gaaban waxa lagu kabaa aamusnaan jaahil baan ahay waxaad ugu tiri beenaale oo uqdad qaba ayaan ahay oo beenkaasi sheegaya waliba waxaas oo dhan waxaan u haystaa inaad si khalad aniga iga fahantay oo hadda aad ogeenba inaan arko maalin walba intaas oo qof oo ilaahay ku gafay been ka sheegaya oo laakiin se aan isdhaafiyo kana hadlin maadaama dadka aan rajo ka qabinba nin aan jeclahay oo hadda isleeyahay waa inay yaro soo kobcayo oo u baahan in la hago markuu khaldamay oo qacan qabo ayuun baa tahay saa awgeed ayaana videogii u sameeyey wax aflagaada iyo wax caya oon kaa soo gudbay ma jirto waana wanaagsantahay haddii aad ka naxday muuqaaladii adiga aad samaysay oo kaa soo horbaxay waxaa loo qaadan karaaba inaad tahay inuu qalbigaagii uu ka toobad keeni rababa laakiinse haddii hadda aan isku dayo inaan ku tuso inaasan aniga nafteeda ka hadlayn ama wax aan iska malaynayo ee tahay keliya wax uu ilaahay haddana baray oo intaa kuu soo gudbinayay waxaan ka bilaabayaa suuraddii dhammeed ee aniga laygu magac daray alnacam ayuu ilaahay hadda ku leeyahay aragtida aniga ma karto laakiinse anaka wax walba waanu aragnaa wax walba waan la soconaana ilaahay baa dhahaya saas iyadoo saasa haddana waxay kusii caddaynaysaa inay dhab hadalkaas uu yahay aysan ahayn wax khiyaaliya oo nebi muuse ayaa isku dayay inuu ilaahay la kulmo ama arkaba markii buurtii lagu belamiyey oo uu ilaahay ku dhahay ilaahayoo aan ku eego aan ku arko markaasuu ilaahay ku yidhi weligaa hadda ima arki karti lama oran hadda ima eegi karti ee waxa la lan taraani lan weligaa ima arki karti aduna waxaad ku sheekanaysaa ilaahay aragtayba ruyana ku aragtay muuse loo diiday oo la dhahay weligaa hadda lan taraani ima arki karti hadal ahaana ilaahay wuxuu dhahay qof ila hadli karta toosa ma jiraba waa inaan loo dhaxeeya xijaab ama waxyahan aan hadalkayga iyo fariinteeda ugu soo gudbiyaa ama rasuul aan inii soo diraa oo sidaas kitaabkii wax walba inigu soo gaarsiiya marka adigu maad oran xijaab baa noo dhaxeeyay maad oran rasuul ayaa noo dhaxeeyay maad oran haddana waxyi baa igu soo degay waxaad tiri waxyaalo ka baxsan diinta qur-aanka iyo islaamka iyo ilaahay wuxuu ku hadlayay aayadahan ku adeegsaday waxaan kaa codsanayaa marka inaad dib isku fiirisi ood xaaladaada dib u eegti oonad ii aragti nin walaalkaa oo kaa naxayo muslimnimo iyo diin islaama kaagala hadlaya haddii aad u aragtay inay jaahilnimo tahayna waxaan wax cusub maahaba weligeed waa islaaflagaadeen jiray qofka dadka markays khilaafaan laakiinse wanaag haddaa ka eegtay waxaan kugula talinayaa hadalkan aad ku hadashay inaad hadda ka fiirsatay inuu yahay hadaladii illuminaatiga qolooyinkan dhahaya nuur baan arkay samadaan tegay oo markuu qofka psychosis iyo balaayo galayo ayuu waxaan ku sheekeeyaa ilaahay baa la kulma nuur baan arkay marka ilaahayna haddii uu ku sheegay qur-aankiisa inaysan la arki karinba oo muuse lagu yiri weligaa hadda ima arki karti iska daa eegitaankii waxaa lagaa rabaa inaad hadda anaka naga jaahil bixisa haddii aad miirkaaga uu joogo oo dhaawac ku gaarin ood soo gudbisaa waxyaalaha aad ku beeninaysay ilaahay hadalkiisii ama ku burburinaysay ood oranaysay xitaa ilaahay hadalkiisi wax kalea ka dambeeyay ama haddii kale inaad qaritiin aad diin kale iyo afaaro kale aad abuuratay oo sidaas awgeedna aad ku adkaysatay aan anaguna markaa isku daynaa inaan kaa fogaano waan kuu duceynaynaa howlo badan baanu qaban karnaa laakiin waa inaan kala ogaanaa adigana kow ogow inaan nin walaalka ahay oo hadda run ahaantii kuu damqanaya sidaa awgeedna kugu soo jawaabay aflagaadaya xumaatay iyo ciyaalo suuqnimo iyo cay nagama wada dhexayso labadeena